السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو مع محمد إبراهيم halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadeen imtixaanaheena ahaa aan ku baranaynay joint venture wax saasan ma aha waa ganacsi la mid ah ama muxuu sida partnership oo kale oo laba qof iyo in ka badan ay bilaabaan oo mataqaan isku darsadaan oo profit ka faa'iidadana ay share gareeyaan loo soo yimaadaan ganacsiga ay share gareeyaan marka joint venture waxyaabaha ugu duwan yahay partnership wax ka mid ah partnership waa long term waqti badan ayuu socdaa laakiin joint venture waxa la dhahaa temporary business waa ganacsi muddo yar soconaya oo muddo gaaban soconaya waaye muxuu ahaa joint venture waxaan niri laba qof wix ka badan ayaa isla bilaaba laba qof ayaa isku imaanaya waxay dhisan gareynayaan ama isla go'aan qaadanayaan in ganacsiga bilaabayaan ganacsiga ay wada bilaabaan ee profitkana ay mataqaana si equal u sheegareeyaan ama qof u badsan karo hadba iyagu waxay ku heshiiyeen ganacsiga ay mataqaana dhisan gareeyaan oo iyagu ay mataqaana ku heshiiyeen labada qof ama laba qof inta ka badan marka waxaan rabnaa maanta inaan mataqaana qaybtan credit set ka isla sharaxno qaybta debit set ka casharka hore ayaan ku sharaxay waxaan rabnaa maanta qaybtan credit set ka ah inaan isla sharaxno oo mataqaana isla ogaano muxuu qaybtan debit set ka qaybtan waxa la credit set ka waa maxay waa income waaye always waa income waaye mataqaana qaybtan credit set ka qaybtan debit set ka waa maxay waa expenses waa kharashaadkii marka labada transaction ka dhacdooyinka dhacaya labada qof ganacsiga mataqaan hal qof ayaa qoraya ama labadooda qof way qori karaan hadii laba magaalo kala joogan laakiin hadii hadda tan ganacsiga aan sameynayo ama muxuu ahaa casharkan ka hadlayo waa maxay waa laba qof isku hal meel jooga hal magaalo wada jooga laakiin hal qof responsibility ga qaaday oo buugiisa wuxuu ku qoray dhacdooyinka oo dhan hadda tan qaybta waa maxay bay cash account oo cash account waa maxay buugan waxa qoraya qofka mataqaana ganacsiga mataqaana gacanta ku hayo qoraya magaciisa buugan kuma qorayo ee wuxuu ku qorayaa cash account cash waa maxay waa alaabta suuq iibiyay waa cash oo qaybta waxay imaanaysaa credit side-ka alaabta qofka kale oo saaxiibkiisa oo partnerska ganacsiga kula jira waxa uu isagu iibiyay wuxuu qorayaa magaciisa ayuu ku qorayaa waxa maxay Maxamed ayuu ku qorayaa alaabta mataqaana uu iibiyay muxuu ahaa Faarax oo buugan iskale waa buugiisa magaciisa ku qoramayay wuxuu ku qorayaa by cash account oo sale oo magaciisa ma ahayn ku qorayo buugan buugiisa buugan mataqaana uu hayo muxuu Faarax uu hayo haduu Maxamed alaab iibiyo cash ku qoramayay wuxuu ku qorayaa Maxamed account oo sale haddana waa maxay waa by purchase account and sold stock taken martaqaana markii ganacsiga oo mataqaana xisaabintu ay dhamaato oo rabo in la isla xisaabiyo ganacsiga profit ama loss ama sum ama 6 bilood ama bil whatever waqtiga ay mataqaana periodka xisaabirka la sameynayo alaabta hartay qofka qaadanaya qof ayaa qaadanaya oo sanadka dambe ganacsiga ku bilaabaya waxa la wuxuu qoranaysaa wuxuu ku qorayaa by purchase account and sold stock oo ku qorimaya magaciisa alaabta Maxamed mataqaana hartay oo Maxamed qaatana wuxuu ku qorayaa by Maxamed account and sold stock marka inta way afarta qaybood ayaa imaanaya waxyaabo kala yimaadana kadib isla arkayna insha Allah casharka wixii waxaan bilaabaya problemada ayaan bilaabaya oo sida mataqaana saxda ah oo si practical ah oo waxa saasana company profit loss sida loo saar kulli wasla ogaanayna marka casharka inaha ay ku saabsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh